chicago faaruq philadelphia cidlo new york si qayr alcaadi ah ayay u bannaan tahay sidaan oo kale ayaa la filayaa in uu xaalku ahaado madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in kala fogaanshaha bulshada ay gaari doonto ilaa iyo dabayaaqada bisha April si loo xakameeyo faafidda COVID-19. ogaada halka ugu sarraysa ayaannu gaari karnaa geerida 2 toddobaad gudahood wax ka xun ma jirto inaad guul sheegato adigoo aanan guul gaarin taa ayaa noqon doonta khasaarahaaga ugu weyn waxaa la filayaa in fayraskan uu dili doono tiro badan usbuucyada soo socda Dr. Anthony Fauci oo ah xubin muhiim ah ee ka tirsan guddiga la dagaalanka fayraska corona ayaa sheegay in cudurkan uu dili doono ugu yaraan 100,000 oo Amerikaan ah. go'aamadayadu waxay ku salaysan yihiin fikirka ah in halkan lagu arki karayo kiisas badan oo ah coronavirus waxaana taasi naga caawinaysaa inaanu iska gaadhin go'aan kala dhiman oo hadhow toolaan waxba laga qaban karayn. La taliyaasha madaxweynaha ayaa iyaguna sheegay in ayba ka sii dari doonto oo ilaa iyo 2 milyan oo Maraykan ah ee qatar ugu jiraan in ay cudurkan u geeriyoodaan. haddii aan hoos u dhigi karno tirada 100,000 ee aanu ka hadlayno waa arrin xun laakiin haddii aysan nala dhaafin 100,000 iyo 200,000 shaqo wanaagsan ayaanu qabanay. New York ayaa weli ah bartanka fayraska ee Amerika halkaas oo ay shaqaalaha caafimaadkuna ka cabanayaan gabaabsi qalabka caafimaadka ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay in ay cisbitaalada qaarkood ay urursanayaan oo aysan cisbitaalada kale la qaybsanayn qalabka muhiimka ah sida marwaxadaha iyo qalabka kale wuxuuna faray in ay qalabka fasaxaan.